gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada xildhibaanada mudanayaasha golaha wakiilada xogayaha guud agaasimayaasha iyo howlwadanada dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maalin wanaagsan mudanayaal sidoo kale sanad wanaagsan sanadka cusub ee islaamka oo maanta ay si guud fasax u ahayd laakiin innaga maadaama aynu jadwal shaqo oo ballan la xisaabtan oo qaar ka mid ah golaha wasiirada aan lahayn aan shaqaynayno hadduu ilaahay idmo xildhibaanadana aan uga mahad celinayo inay soo xaadireen fadhiga berri ayaan fasaxaas ku bedeli doonaa oo ugu bedeli doonaa mudanayaasha in maalinta fasaxayda maanta inaga baaqatay aan berri fasax ka dhigno hadduu ilaahay yidhaahdo waxaan ku jiraa ajandaha galfadhiga 56aad qodobkiisa 6aad ee la xisaabtanka xukuumadda waxaan fadhigii kan ka horeeyay horyimi golaha wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta iyo dalxiiska iyo wasaaradda tamarta macdanta iyo biyaha si waafaqsan qodobka 64aad ee dastuurka dowladda Puntland iyo qodobka 3aad iyo 65aad ee xerosaadka golaha wakiilada mudanayaal galfadhiga 56aad fadhigiisa 10aad oo maanta oo taariikhdu tahay 28 bisha 6aad 2025 waxaa golaha hor imanaya wasaaradda xanaanada xoolaha iyo wasaaradda haweenka iyo horumarinta qoyska si wax looga weydiiyo howlaha loo idmaday howl maalmeedka maanta waxaan ku bilaabaynaa wasaaradda xanaanada xoolaha xogayaha la soo geliyo wasaaradda xanaanada xoolaha waxaan rabnaa inaan isku baraarujino sidii caadiga ahayd inaan ilaalino xerosaadka iyo nidaamka golaha wakiilada mudanayaasha fursadda u helaya inay su'aal weydiiyaan mudanayaasha lala xisaabtamayo inay ku koobnaato ama ay ahaato waxaan weydiinaynaa waajibaadka aynu u ansixinay wasaaraddaas inay ku ahaato waxaan weydiinaynaa laba inaan nidaam hoosaadka golaha ilaalino mudanayaasha 3 daqiiqo markaan siino hal shay oo kaliya ayaa loo dhexgeli karaa hadalka oo point of order inuu qofku hadal uu markaa wado wax khaldan ka sheego oo aad toosinayso markaa codsado in la toosiyo ama waxaan jirin oo rabo dhexgalku waa saas hadday noqoto inuu qofku dalbado in su'aashiisa laga tagay ama dib u sixida ama wax ka laga tagay dhexgal oo dhan waxaan marka ay dadka oo dhan soo wada marto ayaan siinaynaa dadka intii dhexgal u baahan baan siinaynaa laakiin hadday xildhibaan ku noqoto wareegga koowaad xildhibaanadii kale oo isqoray waa waqtiga ka dhacaya marka intaas aan isku baraarujinaa waa mahadsantihiin